deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan dhinaca bari ayaa waxaa ka jira xaalad nololeed ayna ugu badan tahay dhanka biyaha iyadoona biyo la'aanta ay gaartay heerkii ugu sarreeyay booyadaha biyaha dhaamayana halkaasi ay ku geeyaan qiime aad u sarreeya dadkuna aysan wada iibsan karin taas oo keentay in saameyn xooggan biyo la'aantu ay ku yeelato dadka iyo dunyada deegaanada miyiga ah ku nool qaar ka mid ah deegaanadaasi oo aynu gaarnay ayaa dadku waxa ay ka sheekeeyaan xaaladda biyo la'aaneed heerka ay gaarsiisan tahay iyagoona codsaday in gurmad dhinaca biyaha iyo caafimaadka loo soo fidiyo deegaanka Farago waxa uu ka mid yahay deegaanada xaaladaha biyo la'aaneed ay ka taagan yihiin dad aad u fara badan oo ku nool halkaasi aynu la sheekaysanay waxa ayna ka waramayaan sida xaaladdu ay tahay iyagoona codsigooda dirsaday waxaan joognaa maanta deegaanka Farago waxaan ka mid ahay odayaashiisa waxaan ka mid ahay dadka deegaanka oo meesha wax ka degan deegaanka waa ballaaran yahay dhul aad u tiro badan waaye maanta markii run la sheegayana dhibaatada ugu badan waa biyo la'aan waxa haysatay abaar dhowr sano ah hadda ceelka aan joogno sevenkii hore ceel laga qodqoday ceeshaas aad u fara badneed hal ceel oo biyo laga cabi karo waa laga waayay antoo laga joogo 12 bilood oo roob la'aan ah waan soo marnay gaadiid biyo geyn kara ciriiri buu noqday kaad heshaay lacagta wuxuu kugu la gelayaa koontaroti aan isku dayee bal waxaad yeeshaa isdhib lacagtaas intaas leegna isii inay oonka iyagu badan yahay anigaan hadda idin hadlay qof dumarahan ahay 40 sano baan Farago taagnay 40 ka sano taagnayna biyo la'aan aan ugu haysatay ilaa maanta sidaan u baqnaan hadda korma aan baqay oo maxaa keenay shilaalada nacfiyarada oonka dhibaatada naqabatay xildhibaan Siciid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa waxa uu ugu baaqay wasaaradda tamarta iyo biyaha dawlad goboleedka Galmudug in deegaankaasi shaqadoodu ay taalo isla markaana u ku galaan xaaladda biyo la'aaneed halkaasi ka jirta waxa uuna ka codsaday in ceelbiyood halkaasi laga hirgeliyo si dadku biyo la'aanta uga baxaan wasiir baad la sameeyo wuxuu wasiir la yiraahdo wasiirka tamarta iyo biyaha ayaa magacaaban daruuftu waxay doontaa ahaat nin baa ku magacaaban dadka kale ka sareeya madaxwey waa jiraan shaqadiini baa halkan ka furan oo waxa loo baahan yahay dadka in biyo loo helo aasaaska nolosha waxaad ogtiin inay biyo yihiin hadii biyo la waayo wax noolaan kara ma jiraan qaybaha bari ee gobolka Galgaduud dadka ku nool ayaa xaaladii ugu xumeed iminka ku jira kadib markii laba xilli roobaad halkaasi roobabku aysan ka diin iyadoona taasi ay noqotay mid ka sii dartay arinta sidoo kalena waxaa jira bacaad xoogan oo aan booyadaha qaarkood biyo halkaasi aysan wada geey karin kuwa geeyana lacagta ay halkaasi biyaha ku gaarsiiyaan ay tahay mid qiimaheedu sareeyo Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuuso Mareeb.